mays weydiisay waxa uu yahay wiilkan faraska wataa haddana mar kale saca daba socdaa marka kalena gaadhi gacan ku riixaya doofaarka markana wataa markana sita digaaga haddaad doonayso xigmadda sheekada tan ka dambaysay inaad ogaato ku soo dhowow janarka murtida iyo maadda ee garaad koriye baadkan idinku haynana waxay ku saabsan tahay wiil xoogsato ahaa oo xasan la odhan jiray mar dambe ayaase loo bixiyey xasan farxaan sababta uu magaca farxaan kula baxay sheekada qaybteeda dambe ayaad ku ogaan doontaa aanse ku bilaabo ee waxa la yidhi beri hore waa beri hore ee waxaa jiray wiil dhallinyaro ahaa oo xoogsato ahaa wuxuu muruqmaal ka shaqaystay meelo kala duwan balse 7 sano ee noloshiisa ugu dambeeyey waxa uu shaqaynayay nin beeraley iyo xoolo dhaqato ah 7 sano ka gadaal markii uu shaqaynayay ayuu maalin maalmaha ka mid u yimid ninkii uu shaqaynayay waxa uu ku yidhi waxa la gaadhay xilligan reerkayaga ku laaban lahaa waxaan doonayaa inaad siiso mushahaaradii aan kugu shaqaynayay 7 sano waxaanan u tagayaa qoyskayagii ninkii uu shaqaynayay ayaa ku yidhi waxaad ahayd shaqaale wanaagsan 7 sano sidaad igu shaqaysay adiga hortaa cidna iguma shaqaynin waxaad igu leedahay abaal weyn waxaana ku siinayaa mushaharkaagii iyo weliba saayid wuxuuna siiyey dahab weyn oo madaxa xasan leeg xasanna aad ayuu ugu farxay mushaharka iyo weliba abaalmarinta dheeraadka ee ugu daray ninkuu sanadada badan u shaqaynayay waxau la soo baxay go' watay kadibna waxa uu ku duubtay dahabkiisa ul ayuu sudhay waanu dhaqaajiyey wuxuu macasalaamiyey ninkii uu shaqaalaha u ahaa 7 sano waxaa lagu kala tegay nabadgelyo iyo mustaqbal wanaagsan ayaan kuu rajaynayaa inta noloshaada ka dhiman xasan oo faraxsan xambaarsanna dahabka weyn oo mushaharada u helay ayaa lugeeyey oo dariiqa qaaday balse markuu meel dhexe sii socdo ayaa waxa dhaafay nin faras wata wuxuu yidhi wacnaan lahayda inaan faras lahaada waad iska fuushanaanaysaa oo kadibna waa lagu sidayaa qodax iyo dhagax toona ku mudi maayaan waxaanad ahaanaysaa qof la sido ninkii ayaa maqlay intuu faraskiisa joojiyey ayuu ku yidhi haddii ay sidaas tahay maxaanad faras u lahayn waxau yidhi anigu faras ma haysto waxaan wataa dahabkan weyn ee culayska badan igu haya ee halka adiga lagaa sido aan anigu isaga sido wuu eegay waxuu ku yidhi haddii ay sidaas tahay waynu kala bedelan karnaa aniga dahabka ayaad isiin kartaa adna faraskan ayaad qaadan kartaa oo waxaad noqon kartaa mid la sido xasanna aad ayuu ugu farxay wuxuu ku yidhi qaado faraska haddii aad doonayso inaad eryato ama waradka iyo xawaaraha dheereeyo intaad xadhiga xakamaha dubu jiiddo waxaad tidhaahdaa hob hob kadibna isaga ayaa ordi intaa waxaan hayna uma baahnid isaga ayaa ku sidaya markii aad doonto aad ayuu xasan ugu farxay isagoo u arkaya inuu sameeyey bedelasho cadaalada oo dahabkiisu ku bedeshay hanti u dhigantaa markuu muddo sii saarnaa faraskii ayuu markii dambena doonay inuu farasku xawaaraha dheereeyo weeriyo intuu xadhiga xakamaha dubu jiiday ayuu yidhi hob hob faraskiina intuu xoog u booday ayuu xasan dhulka ku tuuray wuuna orday waxaa qabtay nin xoolo dhaqataay oo sacwatay hadduusan u qaban lahayna faraska lamaba heleen xasan oo xanaaqsan ayaa faraskii ka daba yimi waxauu ninkii ku yidhi anigu faraskan kama helin maba doonayo haddii aad istiraahda eri waabuu ku ridayaa waxaan jeclaan lahaa sacan markii aad doonto aad caanaha ka maalayso subagna aad ka helayso markaad rabtana aad si tartiiba u daba socon karto oo aad u kaxaynayso isagoon wax dhibaato ah ku gaadhsiin ninkii xoolo dhaqatadaha ayaa xasan ku yidhi haddii ay sidaas tahay waynu kala bedelan karnaa adna faraska ayaad isiin adna sacayga ayaad qaadan xasan aad ayuu ugu farxay wuxuuna u arkayay inuu sameeyey bedelasho cadaalada si ciise ayuu hara ka soo kaxaystay isagoo ul adeegsanaya si tartiibana u dabaluudaya muddo markii uu sii socday ayay cadceedda ku kululaatay wuu harraaday wuuna dhididay markii dambena wuxuu damcay inuu si ciise joojiyo oo uu maalo intuu geed ku xidhay ayuu koofiyaddiisii hoos dhigtay wuxuuna doonayay inuu caana ka liso kor iyo hoosba naasaha saca ayuu u jiiday balse tif caani kama soo dhicin marba marka ka dambaysa ayuu sii cadhoonayey
wax caanaana kama helin. sicuna markuu adkaysan kari waaya xanuunka iyo siduu naasaha u jiidjiidayo ayuu intuu haraatay ku dhuftay xasan bannaanka ku tuuray. xasanna aad ayuu u xanaaqay. waxaase soo maray nin hilibla oo doofaar ku riixanaya gaadhi gacan. wuxuu ku yidhi, muxuu ahaa sacatan? wuxuu idhi, sacan waxaan ku beddeshay farasaan lahaanayey. waxaan doonayay inaan caana ka listo, balse caanaba kama helin. caana uu siiyey iska dhaafi, waabuu i dilay oo haraati ayuu igu dhuftay, oo hadda aniga ayaaba xanuunku i yeelay damqaya. waxa uu ku yidhi, sacani waa mid gaboobay, hadda caana kuma hadhin, wuxuuse keliya ku habboon yahay in la qalo. waxau leeyahay hilib wanaagsan oo haddii la qalo laga faa'iidi karo. wuxuu idhi, anigu hilibka looda ma jecli, waxaan jeclaan lahaa wax kale oo aan dhaqdo. ninkii ayaa ku yidhi, waa si wanaagsan, aniga ayaa hilibka looda jecel oo sacan qalanaya, adiguna doofaarkayga ayaad qaadan kartaa. habeenkiina wuxuu kuu noqonayaa waardiye iyo gaadh bahalaha iyo tugta kaa ilaaliya. xasanna aad ayuu u farxay. wuxuuna u arkayey in siciisii gabnadaha ama aan caanaha lahayn uu ku beddeshay doofaar gaadhi gacan saaran. waxaynu ula muuqatay beddelasho cadaalada. hare ayuu ka sii socday isagoo faraxsan. mar dambe waxaa soo gaadhay wiil yar oo digaag ama dooro wataa. wuxuu uga warramay siduu doofaarkiisa ugu soo beddeshay sac. wuxuu sidoo kale ugu warramay siduu saca faras ugu beddeshay, faraskana dahab ugu beddeshay. wiilkii yara ayaa fakeray. wuxuu ku yidhi, saaxiibkay maqal, waxaad ka sheekaynaysaa ima cajabin. waxaan maqlay in tuuladan kaa horraysa doofaar laga xaday, lagana yaabaa in doofaarkani yahay kii la xaday oo sacaagii lagaaga beddeshay. haddii ay ku qabtaan way ku xidhi karaan oo xabsi ayay ku dhigayaan. xasan ayaa si ba'an u baqay. wuxuu ku yidhi, caawi saaxiibkayow, adigu qaado doofaarkayga iyo gaadhi gacankaba, anigana digaagadan ama doorada isii oo iga beddelo. wuxuu ku yidhi, waa arrin khatarteeda leh, waxaasan doonayaa inaan ku caawiyo, waynu kala beddelan karnaa. wiilkii waxau kaxaystay doofaarkii isagoo faraxsan. xasanna digaagad ama dooradii ayuu hara ka soo qaatay, isagoo u arkayay inuu sameeyey beddelasho cadaalada, si ba'anna ugu faraxsan. wuxuu yidhi, waxaan ahay qofka adduunka ugu nasiibka badan. hilibka digaagadan waxaan ku noolaan karaa sannad, maraqiidana waxaan cabbi karaa 2 sano, baalasheedana waxaan ka samaysan karaa barkin aan ku seexdo. muddo markii uu soo socday waxa uu soo maray nin tumaala oo gidaar gadaashii ku tumaya maqasyo iyo midiyo. wuu heesayey. wuxuu ku heesayey, walee nin hurdow hallowday danta, sidaad u heshaan waa hawl. waxay ahayd hees maalmeed uu isku dhaafinayay culayska iyo dhibta shaqadiisa. xasanna wuxuu la muuqday in ninkan tumaalka ee faraxsani uu yahay hantiilo noloshiisa ku faraxsan. wuxuu yidhi, sida kaa muuqata aad ayaad shaqadaada ugu faraxsan tahay. ninkanna wuxuu ugu jawaabay, haa, farsamo yaqaannimadu waa dahab iyo hanti aan ciyaar ciyaar lagu helin. sidaad arkayso, mar walba wixii aan doono ayaan keliday samaysan karaa, jeeb kastana lacag iyo hanti ayaa iga buuxda. waxau idhi, weligay taama malaynaynin. waxau ku yidhi, runtii waa sidaas. waxaadse adigu iiga warrantaa halkaaad ka keentay digaagadan aad wadato iyo waxa ay tahay. waxau yidhi, ma digaagadan? digaagadda waxaan ku beddeshay doofaar aan lahaan jiray. doofaarka maxaad ku beddelatay ayuu weydiiyey. sac ayaan ku beddeshay. sacana maxaad ku beddelatay? isna faras ayaan ku beddeshay. faraskana maxaad ku beddelatay? isna waxaan ku beddeshay dahab weyn. dahabka maxaad ku beddelatay ayuu ugu dambayntii weydiiyey. wuxuu idhi, dahabkana waxaan ku beddeshay shaqadiidhan 7 sannadood ka shaqaynayey. waxau idhi, haddii ay sidaas tahay oo tan iyo bilowga shaqadaadii ilaa hadda aad kolba wax beddelaysay, anigana wax ayaad ii beddeli kartaa. waxaad siin kartaa dooradan ama digaagan, anna waxaan ku siinayaa bir mucjiso ah oo markii aad qaadato kaa dhigaysaa farsamo yaqaan cajiiba. wixii uu doonana kelidii samaystaa. waa birtan, gacanta ayaad gelinaysaa, kadibna dhagxaanta bannaanka yaalla ayaad ku xoqaysaa. dhagax kastana wuxuu noqonayaa wax adiga ku cajabiyo oo lacag iyo hanti lagaa siisto. maalmo kooban kadibna waxaabaad noqon kartaa taajir. haddaad doonayso dhagaxan hare ka sii qaado, markaad gurigaaga aaddo isaga ku xoq, waxay kaaga soo baxana waad arki, waan hubaa inay ku cajabin doonaan. xasanna waxau dooradii ama digaagadii hantidiisa ugu dambaysay ku beddeshay bir iyo dhagax.
muddo ayuu la soo lugeynayey, wuxuuna uba arkayay inuu yahay kan ugu nasiibka badan leh dunida. beddelka uu sameeyeyna waxau moodayay inuu yahay beddelasho cadaalada. mar dambe ayuu daalay, biyo iyo cuntatoona ma haysan, haraad baan ayaa qabtay, wuxuuna ku qasbanaa inuu marar badan nasiimo sameeyo. markii dambena waxau soo gaadhay ceel biyo laga cabo. birta iyo dhagaxii la soo siiyey ayuu ceelka qarkiisa saaray, baaldigii uu biyaha ka cabayey ayuu si mooganaana ugu dhuftay, kadibna birta iyo dhagaxiba ceelka guntiisa ayay ku dhaceen. markii uu arkay in birta iyo dhagaxii ugu dambeeyeen gunta ceelka ku dhaceen, ayuu farxad kor ula qayliyey, ilaahay ayuuna u mahadnaqay. waxa uu yidhi, tanna waa beddelashadii ugu dambaysay oo alle ayaa ii beddelay. wuxuu iga dhigay ku xor ah oo aan waxba hadda sidan oo wax culaysinayaaba aysan jirin. dahab, faras, sac iyo doofaar toona waxna hadda ima dhibayaan oo waxaan hay xor, waxba aysan culaysinayn. qosol iyo farxad badan ayuu ku dhuftay oo xataa waxaa laga maqlayay deegaano fogfog qosolka iyo farxaddiisa. waxau ku soo laabtay gurigoodii isagoo faramadhan, waxna aan gacanta ku sidan. markii la maqlay inuu soo laabtay xasan oo 7 sannadood shaqo ku maqnaana waxaa isugu yimi eheladiisoo dhan, balse waxaa cid waliba yaabtay markii uu xasan sheegay inuusan waxba la soo laaban marka laga tago farxad. dadkii deegaanka oo la yaaban waxa wiilka tan ku dhacay ayaa u bixiyey xasan farxaan. magaca xasan farxaan ayuuna sidaas kula baxay qaybihii dambe ee noloshiisa. haddiise aad sheekadatan si fiican u bogatay, tan iyo marka laga soo bilaabo markii uu xasan qaatay go'aanka inuu shaqadiisii 7 sano uu ka shaqaysanayay uu mushahaaro ku beddesho, kadibna isaga tego, marba marka ka dambaysa khasaare kii hore ka daran ayuu madaxa la gelayey. marar badan ficiladii uu sameeyey wuxuu arkayey inay ahaayeen beddel cadaalada, balse 2 jeer oo ka mid ah ayaa tuugo heshay isaga khiyaamaysay. waan hubaa haddaad sheekada si fiican u bogatay inaad og tahay 2 jeer la khiyaameeyey. haddaad og tahay noogu dhaaf commenti. sheekadatan ku xigta ayaan sheegi doonaa cidda ka jawaabtay. magacaaga iyo halkaad joogtana soo raaciye. intaynu tan iyo 7 dambe ku kulmayno sheekada waxaan tagayaa nabad. waqtigu ha idin wacnaado.